بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا كانال كيني ورسدي ميديا iyo barnaamijkeeni dhabka hadal oo aan caawa ku soo qaadan doono waa labadii habeenimo dagaal ka qarxay magaalada Muqdisho xabada jaqda iyo jiriiriqa baa waxa ka socda magaalada Muqdisho wax lala yaabay sida wararka ay nagu soo gaarayaan waxa dagaal ba'an oo dhaxmaray madaxdii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo cabdikariin xuseen guuleed iyo qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya rasaasta ayaana hawada isku shareertay waxa laga maqlayaa rasaasta meelo fogfog oo aad iyo u fogfog dad aanu waraysi la yeelanay oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan idinku soo gudbin doonaa warbixinteena fadlan ku soo dhawaada kanaalkeena haddii aad nagu cusub tahay subscribe haddii aad hore noola joogtayna la wadaag asxaabteena ku soo dhawo walaasheen ka soo hadlaysa magaalada Muqdisho hello salaamu calaykum walaal عليكم السلام waxaan maqlaynaa in magaalada Muqdisho ay ka socoto xabad haddii aad joogto maxaad warbixin oo naga siin kartaa maxaad maqlaysaa saacaduna waa imisa hadda hadda waa kow sideedii waxay u dhowdaa labadii u dhowdahay waa labadii dambe ku dhowdahay labadii habeenimo u dhowdahay waa gartay maxaa maqlaysaan dhagihiinu maxaa soo gaarayo waa sidee xaaladda والله مدافع aad weyn soo gaaraysa dhageena waa gartay guriyena ku jirta guriyena kama soo baxoono waa gartay xabad zaid u socota waa gartay xabadu marasaastii yaryareed ba mase hub culus baad maqlaysaa rasaastu waa weyn imida yarba inta oo isku dhex jirta lama socon hubkuna waa hub rasaastu ma waqti badan bay socotaa mise hadday bilaabatay maxaad nooga sheegi kartaa wallahi koodii barkii bilaabatay ilaa haddana way socotaa oo ku soo qacnaa koodii barkii bilaabatay muddo nus saac way socotaa hadda waa labadii waa gartay berito waxaa la filayaa in banaanbax aad u ballaaran uu ka dhaco magaalada Muqdisho gaar ahaan dirjirka daahsoon iyo agagaarka madaxtooyada ka waran dareenkiinu waa sidee maxaad dareemaysaan ma laga yaabaa inaad ka qayb qaadataan wallahi cabsi aad weyn aan dareemaynaa anaga haddaanahan laakiin xaaladaha inuu dhici doono ma maleynayo xaaladaha banaanbaxaas waa dheh hadda dagaal bilaawdo ismid oo dhaca banaanbax cabsi fara badan baa la dareemayaa waxaa laga yaabaa banaanbaxaasi inuu suurtageli waayo waa gartay maxaa rajeynaysaa madaxtooyadii way isku cakiran tahay mucaaradkii hubbay qaateen madaxweynihii iyo maamul goboleedyadii weli tanaasul kama muuqdo xaaladda shacabka magaalada Muqdisho oo culeysyada intooda badan ay ku dul dhacayaan sidee weeye dareenkiina maxaa dareemaysaan wallahi idan muqdishaana dareen cabsi ah dareemayna waa gartay mucaaradkii way qaateen oo hadda xabada eega bilaabeen waqti hore waa gartay dawladda ay bilaabeen waa sax wallahi cabsi ah dareemayna ilaahana amaansan ilaahay idinkiisa ilaahay ha idinku waxaa laga baqayaa inuu dib u noqdo dalka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in maslaxad taama iyo ilaahay garansiiyo hogaamiyayaasha Soomaalida dhammaantood aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaasheen taasina waxa ay ahayd mid ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo aan ka wareysanaynay koowdii labadii habeenimo rasaas ka socoto magaalada Muqdisho aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal waa kugu soo dhaweynaynaa maalmihii la soo dhaafayna waxa magaalada Muqdisho laga dareemayay saansaan colaadeed iyo hub urursi waxaana warbixino ku helaynaa in ciidamo ay ka soo galeen maalmihii la soo dhaafay kontaroolka xagga Afgooye gelinkii hore maantana waxa magaalada Muqdisho isu soo bax ay diyaar garow isu soo bax ay qaban qaabinayeen musharaxiinta iyo mucaaradka oo dhan ay ku tageen daljirka daahsoon waxaana ay degeen hotel ka agdhow madaxtooyada oo lagu magacaabo Nasaha Blood 2 waxaana la rajeynayaa berito inuu ka dhaco magaalada Muqdisho isu soo baxyo aad u weyn laakiin waxa hadda xilligan saqda dhaxaa ka socoto dagaal aad iyo aad u weyn waxaanan idinku soo gudbin doonaa
xaaladahaasi iyo wixii ka soo baxa oo warar ah warbixinadeenna dambe fadlan ku xirnow kanaalkeena oo mar walba nala soco haddii aad nala joogtayna la wadaag asxaabtaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.